suuqa kriptada wuu burburay maxaa sabab ah hoos u dhaca xooggan. Waa maxay sababta suuqa kriptada uu hoos ugu dhaco qiimihiisa? Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan aad u baahan tahay inaad wax ka ogaatid, khaas ahaan haddii aad suuqan kriptada ku jirtid oo aad maal gashatay ama aad danaynayso inaad maal gashatid lacagaha kriptada ah. Suuqa cryptocurrency waa suuq aad u kacsan, qiimihiisuna si joogto ah ayuu isu bedelaa. Mararka qaarkood qiimaha ayaa si aad ah kor u kaca, mararka qaarna si aad ayuu hoos ugu dhacaa. Qiimaha Bitcoin wuxuu gaaray qiimihii ugu sarreeyay ee ebit 109,000 iyo wax la jiro oo dollar halkii xabo bishii la soo dhaafay 20keedii January 2025. Sidaas ay tahay haddana lacagaha kriptadu sida Bitcoin-ka iyo altcoins-ku waxay sameynayaan hoos u dhac qiimahooda maalinba maalinta ka dambayso. Weli ma hayno altcoin season. Mowduucan waxaan ku taxliilin doonaa sababaha keena hoos u dhaca lacagaha kriptada. Waxaan ku siin doonaa aragti dhammaystiran oo ku saabsan mowduucan. Haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran channel-keena, fadlan like noo saar. Sidoo kale haddaadan ka mid ahayn ku soo biir maantaba. Aad baa u mahadsantahay. Haddaba sababaha qiimaha kriptada cryptocurrency-ga suuqa uu hoos ugu dhaco waxaan u kala falanqeyn doonaa ilaa iyo dhowr wax ayaan u kala qaadi doonaa. Number 1, wararka xun. Wararka xun ee dunida ku dhaco sida dagaalada, weerarada internetka, xatooyada iyo sharciyada cusub ayaa saameyn weyn ku yeelan kara qiimaha suuqa kriptada. Dhaqdhaqaaq walba oo dunida ka dhacayo sida dagaalada iyo arrimooyinka siyaasadda waxay saameynayaan suuqa kriptada. Markii ay soo baxaan warar xun oo sidaas oo kale ah, dadka ayaa bilaabayo inay iska iibiyaan lacagaha kriptada ay haystaan ee ay hore u maalgashadeen iyagoo cabsi ka qabo in ay khasaaraan. Taasina waxay keentaa in qiimaha hoos u dhaco. Tusaale ahaan haddaan eegno waxyaabaha hadda suuqa maanta oo taariikhda 18 bisha ay tahay, waxyaabaha suuqa hadda kriptada saameeya waxaa ka mid ah hoos u dhici weyn ee ku dhacay saacadihii u dambeeyay. Waxaa lagu falanqeynayaa inay tahay oo la og yahay inay tahay in exchange-gii hore ee burburay ee loo yaqaanay FTX ay maanta dhaheen ay ku dhawaaqeen in ay bixinayaan lacagihii maadaama ay manasadaas ay aad u burburtay, khasaartay. waa tii ay 2022kii ay baaba'day. Marka waxay bilaabeen in ay dadkii hantidoodii ay u celiyaan. Marka taas waxay aad u saameysay suuqa kriptada, weliba khaasatan Solana, maadaama ay dadka lacagaha loo celinayo userska ay u badan yihiin lacagaha ay haystaan, Solana ay u badan tahay. Marka cabsi weyn oo saas ah ayaa suuqii saameysay. Taasna waxay keentay in guud ahaan suuqii uu minus wada galo, khaasatan 8% ee qiimaheeda hoos u dhacdo lacagta Solana. Sidoo kale Solana iyo meme coins-ka ku dhisan network-keedaba waxaa ku socdo seel xooggan, laga yaabo inay qiimo badan ay lumiyaan. Marka wararka xun ee soo baxo aad ayuu suuqa u saameeyaa. Sidoo kale codsigeeda haddii ay war wanaagsan soo baxo, arrintaas marka cagsigeeda haddii warar wanaagsan uu soo baxo ayadana sidoo kaleento suuqa way saameysaa, laakiin si positive ah, waxaana kor u kac ku dhaco lacagaha kriptada. Number 2, dhaqaalaha. Xaaladda dhaqaale ee guud ahaan iyo sidoo kale saameyn ku yeelan karo suuqa kriptada. Tusaale ahaan haddii ay jirto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha, dadka ayaa laga yaabaa inay iibiyaan hantidooda ay ka haystaan kriptada si ay u helaan lacag caddaan ah si ay u helaan. Marka taas ayadana waa ay saameyn kartaa dhaqaalaha. Number 3, sharciga. Dowladuhu waxay soo saari karaan sharciyo cusub oo saameyn ku yeelan kara suuqa kriptada. Tusaale ahaan dowladdu waxay mamnuuci kartaa isticmaalka cryptocurrency-ga ama waxay kordhin kartaa canshuuraha. Waxaan ognahay in maalmo ka hor madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo saaray go'aan canshuur kordhin ah. Uu doonayay inuu ku qasbo dalalka sida Canada, Mexico iyo Shiinaha in ay bixiyaan canshuur kordhin markay alaabooyin ka soo dejinayaan Mareykanka. Tani waxay keenaysaa in qiimaha alaabooyinkaasi laga soo dejinayo Mareykanku ay kororto, taas oo saameyn ku yeelan doonto dhaqaalaha adduunka iyo suuqa cryptocurrency-ga. Kadibna waan ogeyn in suuqa kriptada uu maalinkaas go'aankaas uu soo baxay uu hoos ugu dhacay qiimihiisa. Number 4, tiknoolajiyada. Horumarinta tiknoolajiyada cusub ayaa saameyn ku yeelan karta suuqa cryptocurrency-ga. Haddii ay soo baxaan technology cusub oo saameyn ku leh suuqa kriptada, waxaa laga yaabaa in midaasi suuqa kriptada ay saameyso. Tusaale ahaan shirkadda Nvidia ayaa maalmo ka hor hoos u dhacay qiimaha sahmigeeda 20%,
arrintaas oo aad u saameysay suuqa kriptada. qiimaha suuqa ayaa ku waayay ku dhawaad $450 bilyan maalin kaliya. khasaaraha weyn ee ku dhacay shirkadda Nvidia ayaa saameyn aan toos ahayn ku yeeshay suuqa cryptocurrency-ga sababtoo ah Nvidia waxay qayb ka mid ah ka tahay nidaamka deegaanka ee ku tirsan artificial intelligence-ga iyo crypto mining-ka. sababta dhabtaa ee keentay in hoos u dhac weyn uu ku yimaado shirkadda Nvidia iyo suuqyada guud ahaan waa soo gelitaanka ee fakaaraha soo gashay DeepSeek. haddaba waa maxay DeepSeek? DeepSeek waa macmalka caqliga badan ee artificial intelligence-ga ay soo saareen Shiinaha, kaas oo tartan xooggan la galay ChatGPT-ga aan naqaanay. lambar 5, tartanka. suuqyada kale sida suuqa saamiyada ayaa tartan la geli kara suuqa kriptada. dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay u wareegaan suuqyada kale haddii ay u arkaan inay yihiin kuwo ka faa'iido badan. lambar 6, shucuurta suuqa. shucuurta suuqa ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta qiimaha. haddii ay dadku dareemaan cabsi ama walaac, waxay u badan tahay in ay iibiyaan hantidooda kriptada, taasina waxay keentaa in qiimaha hoos u dhaco. lambar 7, iibinta badan sidoo kale waxay si weyn u dhimi kartaa qiimaha suuqa. haddii ay dad badan ay isku mar wada iibiyaan hantidooda kriptada, waxay keeni kartaa in qiimaha si aad ah hoos ugu dhaco. haddaba gunaanad, suuqa cryptocurrency waa suuq aad u kacsan, qiimihiisuna si joogta ayuu isu bedelaa. hoos u dhac ayaa ku yimaada qiimaha suuqa cryptocurrency-ga oo sababi kara walaac iyo cabsi badan. waxaa muhiim ah inaad fahanto sababaha qiimaha kriptadu ay hoos u dhacdo si aad saameyn kartid go'aan xooggan oo xog-ogaal ku saabsan maalgashiga uga qaadan kartid. haddaba talooyinka aan bixinayn waxaa ka mid ah: ha iska gelinin suuqa kriptada lacag aadan ka maarmin hadhow in aad khasaarto. ogow, suuqan waad ku khasaari kartaa, waadna ku faa'iidi kartaa. 2, cilmi baaris samee ka hor inta aadan maalgashanin lacagaha cryptocurrency-ga. 3, sidoo kale la soco wararka iyo dhacdooyinka ku saabsan suuqa kriptada. 4, ha ka baqin hoos u dhac qiimaha. 5, dulqaad weyn u yeelo suuqa inta suuqa uu soo hagaagayo. tusaale ahaan, haddii aad lacag maalgashato oo khasaare ku jirto, sug inta ay kasoo noqonayso oo khasaaraha uga bixin. haddaba waa maxay waxa xigi doona? run ahaantii qofna ma yaqaano waxa xigi doona, laakiin saadaashu waxay sheegaysaa in aan ku jirno bull market oo alta season aan geli doono insha Allah. weli fursadaha maalgashiga kriptadu way furan tahay. had iyo jeer xusuusnaaw, dhibaatooyinka hadda jira waxay fursad u noqon karaan kuwa leh samir iyo aragti fog. waad ku mahadsantahay saaxiib intaan aad nala soo gaartay muuqaalkan. intaan ayuu nooga egyahay saaxiib. sidoo kaleeto wixii su'aalaha aad qabto nagula wadaa qaybta commentiga. sidoo kale like-ta iyo share-ta iyo hanaga iloobin insha Allah. waxay fursad noo siinaysaa inuu muuqaalku meel dheer uu gaaro. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay saaxiibintaas. sidoo kale haddii aadan ka mid ahayn asxaabta ku xiran janaalkeena, fadlan kusoo biir maantaba oo subscribe noo saar. intaan muuqaalka ku kulmi doono, nabadgelyo saaxiib. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.